kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda sharafta leh meel walba oo dunida dacaladeeda ka joogtaan ku soo dhawaada boggeena YouTube ee Brothers Media Group wadaalaaba ka daawan jidaan warbixinadii ugu dambeeyay ee Soomaaliya arrimaha fanka iyo suugaanta Soomaalida la xiriirta kuma sanad waxaynu maanta mowduuceena kaga hadlaynaa Muqdisho God Talent oo la istaagay arrimo dhaqaale darre iyo waliba fanaaniin cusub oo ku soo biiray barnaamijkaasi intayna ugu gudagalin barnaamijkana ku soo dhawaada qadar yar oo xayeysiin ah waxaan saami ku yeelan hargeyso samarkeeda midigta laga siiyo jabuuto sida fiican abadkeedu siraadan gaariso sumadeena calankeeda la saaro jigjigo saban khayr leh rabigeedu siyaadsho muqdisho nabad suuban saldhigeeda ahaata fadlan daawada ha ilmaamin haddii ay tahay markii kugu horeysay ee boggeena YouTube inaad nagu saacidid subscribe gambaleelka furo muuqaalka like saar una share garay asxaabtaada ku maasanid barnaamijka Muqdisho God Talent ayaa ardhawaale ka socday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho barnaamijkani ayaa waxa ka qayb galay kumanaan dhalinyaro ah dhalinyaradani ayaa waxa ay ku soo bandhigayeen qof walba hibada Ilaahay gaar u siiyay dhalinyarada qaar ayaa barnaamijkani uga qayb galay qoobka ciyaar waali ah heesa iyo codkooda macaan ee tolmoon ay kugu luuqeynayaan heesii hore iyo waliba heesa ayagu ay turjunteen dhalinyarada qaar ayaa waxay uga qayb galayeen barnaamijkani ciyaarta qaarka ah ee booliska Soomaaliyeed qaar kale ayaa uga qayb galaya in dhasarcaad waali ah ilo xogogaal oo ku dhowdhow barnaamijkani ayaa noo sheegaya in barnaamijku uu soo gaaray heer gabagaba ama final ah daawadayaal badan oo Soomaaliyeed oo jooga Soomaaliya iyo caalamkana ay aad ula socon jireen barnaamijkani ayaa markii uu finalka soo gaaray waxa soo wajahay xaalad dhaqaale darre iyadoo oo la rabo in barnaamijku maadaama uu final marayo la rabo in dhalinyarada ka soo qayb gashay barnaamijkani bilowgiisii ilaa dhamaadka la guddoonsiyo shahaado sharaf ku baxaysa lacag aan caadi ahayn abaalmarino cajiib ah sidoo kalena waxa aad u gaabtay mushaarkii la siin jiray barnaamijka daadiyaashiisa ee Muqdisho God Talent arrinta la yaab kale aan helnay iyadoo xaaladaasi uu ku sugan yahay ayaa haddana waxa barnaamijkan lagu soo daray laba fanaan oo gayiga Soomaaliyeed caan ka ah waa fanaan kamid ah fanaaniintii hore oo lagu magacaabo Xasan Aadan Samantar iyo fanaan Dayax Dal Nuurshe barnaamijkani ayaa ila ku dhowdhow waxa ay noo sheegayaan in dib loo bilaabi doono oo wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ay loo hoostageen kooxdii waday barnaamijkani ayaa lagu wadaa in dib loo bilaabo finaalkiisa ayna ka soo qayb galaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada iyo waliba dadka shacabka ah ee Soomaalida qaybteeda caanka ah daawadayaal intaan warbixinta mid ka ciise badan ku kulmi doono waa idin kaga tageynaa sidaas nabadgelyo